بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا نوقف الله يا مقعد الدولة الفدرالية الصومالية يوجد طبعا قابضة آس قرن رئيس الوزراء ومقعابي وحنا مركوب الرئيسة تحسود دريا الله ونحرسته ولكن عبد الرحمن بن عثمان يريisow وها qof qaali ah waxaan doonayaa inaan taxsuud diro dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ay naga siiyo Allah ha u naxariisto ilaahay su'aasha ha u fududeeyo Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo afkaaban oo af iyo adilba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen shakhsi karaamo leh oo ahaa qof saaxiib tilmo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xiriir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su'aasha u fududeeyo jannatul firdawsana geeyo Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar uu guntaday naftiisu u huray
aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaatibaynu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo inteena kale oo ummadda Soomaaliyeed ah mas'uuliyiinta ah dawlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan si laban laabnaa suurtagelinaa in aynu dalkeena ka aasaasno nabad islaaxda magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof walba Soomaaliyeed ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karayo waxaynu ku sogootiyeynaa walaalkeen Aas Qaran iyo ducada qaran waxa jiri doonto oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in 3 cisho kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga oran doono xafladaas hadii Ilaahay yiraahdo waxa leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxa inooga aadan oo kaliya in aynu u ducayno waxa kale oo doonaya inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaynu cafino dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay haduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu iscafino Ilaahay aynu u barino inuu u naxariisto innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno Ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh